soo dhawaada walaalayaal wax afjana ku soo dhawaada maanta waxaan ka hadli doonaa mooska sababta ku keento in uu madoobaado daqiiqado kadib mooskeena marka uu fiiqnaado waxa ku dhaco madow hadaba mooskani maxaa ku keena in uu madoobaado laba sidee aan uga ilaalin karnaa in uu madowgan ku dhaco waxa jira wax la yiraahdo oxidant ama oxidation mooska marka la fiiqo waxa la dhaawacay saliskiisa ama nudayaashiisa waxa ogtahay jirka bini'aadamka hadii qofku wax ku dhacaan in meeshii ay dilaacdo kadibna ay u baahan tahay waqti ay ku bogsato mooska sidaas oo kale waxa uu la mid yahay wax noole bini'aadamku uu la mid yahay dhimi karna laakiin waa noole waxay isaga dhow yihiin saliska sida ay u shaqeeyaan waxa dhaawac gaaray oo la jaray ama la khalay saliska ama nudayaashiisa isku xirnaa waxay falkan la sameynayaan saliskiisa dheecaanada ku jira maada la yiraahdo oxidation ama oxygen oxygenkana waxa laga helaa sida dabiiciga ah hawadeena ama banaankeena hadaba hadii aad isweydiinayso muddo dheer sababta keenaysa mooskan inuu madoobaado waa oxidation ku dhacay sidee ayaan uga ilaalin karnaa madowga laba shay ayaa noogu dhow oo dabiici ah oo cunno ahaan aan u isticmaali karno inaan antioxidant aan u isticmaalno shayga koowaad waa liin ama lemon juice shayga labaadna waa malabka ama sirabka sirab waxa kale loo isticmaali karaa inaan dhahno sokor la qasay ama la dhalaaliyay labada shay aan u isticmaali karnaa in aan kaga ilaalino antioxidant labada shay waa labada shay ugu dabiicisan soo kale loo isticmaalo antioxidant wali waxaan ku gada jirnaa tijaabadii aan ku sameeynay mooska ilaa meeqa daqiiqo ayuu isku bedeli karaa markii la fiiqo kadib waxaan mooska aan jarjarnay daqiiqadii markii ay mareysay 10 saac iyo 51 daqiiqo ee subaxnimo haddana saacadu waxay mareysaa 11 iyo 1 daqiiqo 10 daqiiqo kadib isbedel inta la eg ayaa ku dhacay mooska aan isla fiirino madowga aan arkayno ilaa heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay waxaan isticmaali doonaa slide-ka oo cad kamid ah ayaan saari doonaa si aan ugu fiirino weynaysada heerka intee leeg ayuu gaarsiisan yahay madowga hadaba aan isla fiirino microscope ku aragnaba muuqaalka waxaan aragnaa in ka badan oo waliba kullaba jibaaranto muuqaalka hore ee arkayna ee madooba